السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحمد حسين عبدي. waxaan doonayaa inaan halkan ka bilowno casharo taxana noqon doona insha Allah oo ku saabsan HTML and CSS. Kanina waxaan noqon doonaa casharkeennii koowaad oo aynu ku soo qaadan doono introduction of HTML and CSS. HTML hadaba marka aynu eegayno waxa uu taagan yahay hypertext markup language, taasoo su'aal meesha imanayso ah waa maxay HTML hadaba. maadaama uu casharkeennii introduction yahay waxaanu baranay HTML ka la yiraahdo waa maxay oo mase muxuu ku tacalluqayaa. HTML is a basic computer language for creating website. waa luqadda aasaasiga ah ee computerku fahmo isla marhaantaana lagu sameeyo website ayaa la yiraahdaa HTML. CSS isaguna waxa uu taagan yahay cascading style sheets oo ah waxyaabaha loo isticmaalo formattingka and styling of the web pages in lagu qurxiyo isla marhaantaana lagu qaabeeyo oo lagu design gareeyo web pages ku nooca ay u ekaanayaan ayaa la yiraahdaa CSS. hadaba haddaynu isla eegno taariikhda HTML-ka iyo xilligii uu soo baxay iyo tadawurkii uu soo maray iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu ka soo gudbay 1989 ayaa nin la oran jiray Tim Berners-Lee ayaa waxa uu develop gareeyay luqadan la yiraahdo HTML-ka. dabayaaqadii 1991 European Organization for Nuclear Research ayaa waxa ay soo publish gareeyeen daabacadii ugu horeysay ee uu lahaa HTML-ku ama base qormadiisii koowaad ee uu lahaa HTML-ku ayay soo publish gareeyeen. sanadku markuu ahaa 1993 waxa soo baxay version-kiisii koowaad ee HTML-ka kaasoo la oran jiray HTML1. HTML 2.0 ayaa isaguna waxa uu soo baxay November 1995. HTML 3.2 ayaa isaguna waxa soo baxay 14 February 1997. isla sanadkan 1997 waxa soo baxay version-kiisii ahaa 4.0 iyo CSS1. 4.01 ayaa isaguna waxa uu soo baxay 1999 iyo CSS2 imaka waxa socda oo ilaa ay hadda la isticmaalaa waxa weeyaan HTML5 kaasoo isaguna soo baxay January 2018 iyo CSS3. hadaba casharadeenina waxa ay ku base gareysnaan doonaan HTML5 iyo CSS3. waxyaabaha hadaba aynu u baahanahay waxa kamid ah si aynu u qorno ama si u develop gareyno HTML text editing application baynu u baahanahay. macnaheedu applicationskan wax lagu qoro sida salahan haddii ku soo qaadano kala Dreamweaver-ka, Notepad-ka oo isagu la socda Windows operating system-ka ama base Notepad++ oo isagu ah software free ah kaasoo ina siinaya inuu syntax-ka ama base waxyaabaha aynu qoraynay inuu kala sameeyo isla marhaantaana hintu ina siiyo oo macnaheedu markii wax qorayno kala inuu soo dhigo waxyaabihii eriga aynu qoraynay oo kala khuseeya. waxa kale oo u baahanahay web browser ama base browser sida Google Chrome, Mozilla Firefox ama base Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera ama base Torch. halka isagu Microsoft Edge ku la socda Windows 10 operating system. casharadeenani waxa ay ku base gareysnaan doonaan HTML5 iyo CSS3. halkaas ayaynu joogay casharkeeni maxay tahay gaabna ay ku saabsanaa hordhicii ama base overview yaraayn ka qaadanaynay bal HTML-ka iyo xilliga uu soo baxay iyo waxyaabaha loo baahan yahay inta aan la bilaabin casharka ka hor. Notepad++ oo kale marka waxaan idin soo dhigi doonaa insha Allah video description-ka halkaas aad ka download koraysan doontaan. sidaa iyo salaam عليكم ورحمة الله وبركاته.